halkan kama socoto xaflad dhalasho ah mid meher mana ahan mid loo dhigayo arday ka baxday iskuulaadka maadiga ah laakiin waa munaasabad lagu dhiirigelinayo Amran Xasan oo gabar da'yar ah oo 114 suuradood ee Qur'aanka Kariimka ah ka dhamaysatay dugsiga Qur'aanka Kariimka ee Sayd Axmed ibnu Idris ee Muqdisho. Waalidiin, macallimiinta dugsiga, arday iyo marti sharaf kale ayaa goobtan ku sugan si ay qayb kaga noqdaan xafladan lagu dhiirigelinayo Amran oo dhamaysatay Qur'aanka Kariimka taas oo lagu qabtay gudaha dugsiga Qur'aanka ay ka baratay. waxaa loo dhigay xaflad ay naadir tahay in loo sameeyo ardayda ka baxda dugsiyada Qur'aanka Kariimka sanadahan dambe. Hilib, bariis iyo cunooyin kale ayaa goobta munaasabada la soo dhigay si ardayda dugsiga iyo martida ugu duceeyaan Amran Xasan oo dhamaysatay Qur'aanka Kariimka. Maama Xasan Salaad Qaari oo ah ayeeyada gabadha soo barbaarisay ayaa munaasabadan dahab ku guddoonsiisay Amran Xasan oo Qur'aanka Kariimka dhamaysatay waxayna goobta ka jeedisay khudbad dardaaran ah. وأيضاً يسير من القرآن كحفظ الدين من الكبير الله يهمهم وهم كلامهم يقولون معلمين قرآن كبرتي أمر حسن أمر هذا جينا من شيخ النقطة يدكس دكتة علم راعة ومرع وين القرآن كله القرآن إدركيس sidoo kale macallin Cabdulqaadir iyo macallin Cabdiraxmaan oo kamid ah macallimiinta soo baray Amran Xasan Axmed Qur'aanka Kariimka ayaa Amran iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabada kula dardaarmay goobta. kuna caaliman aalimnafo waxaa ku dadaalaysaa inaa caalimnimo gaarto oo caalimiga ka aqaaniga ku dadaal mid lamaad oo mutacalliman من متعلم أو واحد برهاي إلى تحاطه عالم كي عالم كهو واحد برهاي واي متعلم فما مثل واحد برهاي واي متعلم أهانايو أو واحد برهايو مركز لي إلى بعد لو يجارو أيك يجارو تعليم وهليني من المهدي إلى المهدي واي برد تكبل لابد إيه أنت عم تقولي أنا كفرني برتو هليرا أنا دمر كارب داو وليش أقول جيفها درب ليرا سكر هلا أنا ده هايو ألف لام ميم حرف واحد ألف كأي لام كأي ميم كأسيته حرف واحد لكن أقول هو ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف وحرف لام وحرف ميم وحرف حرف والبنا ثمن أيال مرنا أنت كسوقات 8 حسنات لام تكحجي 8 حسنات ميم كحجي 8 حسنات dhanka kale qaar ka mid ah ardayda dugsiga Qur'aanka Kariimka ee Sayd Axmed ibnu Idris ahna walaalaha Amran ayaa goobta ugu hambalyeeyay Amran barashada Qur'aanka Kariimka waxayna guddoonsiiyeen hadiyado. halkan waxaa aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo xafladda qaadaha qiimaha leh walaashay Amran Xasan Axmed waxaan ugu duceynayaa inay Qur'aanka ka xifdiso waxaan kaloo halkan u mahadcelinayaa ayeeyadii Xasan Salaad Qaari oo ku soo dadaashay anaga nagu soo daraasay xafladda aad ay qurxinaysaa wax la qurxiyo oo la sharfeeyo waxaa ugu fiican Qur'aanka Kariimka waxaa si qaas ugu mahadcelinayaa macallimiinta soo bara Qur'aanka sidoo kale maamadeena aan mahadcelinayna oo ku dadaashay Xasan Salaad Qaari. ugu dambeynna Amran Xasan oo ay darteed dadkan halkan isugu yimaadeen ayaa si dareen leh kaga mahadcelisay ayeeyadeed hooyo Xasan Salaad Qaari macallimiinteeda iyo martida ka soo qayb gashay munaasabadan. بسم الله أنا أمر حسن أحمد أول مهد الله سبحانه وتعالى يقدرينا لما بقولتوني أفرت القرآن الكريم وحاتنا مهد له هو ذي معان حسن سلاد قاري وحنا يسود ميسيس يسود تريس يودر شيء قرآن الكريم بقولتوني أفرت القرآن هو معان هو ذي مع حسن سلاد قاري أدوين فرحة آخر الجنة وحاتنا مهد علينا waxaa artan waa bareenay aabe Xasan Axmed ayeeyadii Raaxo awowey Axmed iyo eedadii macaan waxaan waan bareenaya hooyaday Farxiye Cali Wehliye hooyaday Maryam Cali Wehliye hooyaday Safiya Cali Wehliye hooyaday Istar Cali Wehliye hooyaday Nasra Cali Wehliye hooyaday Naciima Cali Wehliye
أبتي دولاد عبد السلام، أبتي محمد علي وهلية، أبتي فارع علي وهلية، أبتي عبد الفتاح علي وهلية.